bismillaahi raxmaani raxiim wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada war wixii dalka iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray oo aad si toos ah uga daawanaysaan janaalka shumac midiya. qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah ergeygii qaramada midoobay u qaabilsanaa arrimaha soomaaliya oo ay dowladda soomaaliya ku dhawaaqday in ay dalka ka cayrinayso. wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed cawad ciise oo xog dheeraad ah ka bixiyey sababta keentay in la ceyriyo danjire nicholas haysom. taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya maxamed cabdulaahi sanbalolshe oo si adag uga hadlay ceyrinta lagu sameeyey danjire nicholas haysom. siyaasi salaad cali jeelle oo si kulul u weeraray madaxweynihii hore ee soomaaliya iyo weliba magacyada guddiga doorashada baarlamaanka puntland oo la shaaciyey. qodobada iyo qodobo xasaasi ah ayaad ku daawan doontaan warkayaga shumac midiya janal. ha iloobina inaad sabskrayb garaysaan. u diyaar garooba warkaasi oo faahfaahsan. ku soo dhowaada qodobadaasi oo faahfaahsan. wasaaradda arrimaha dibadda ayaa ku wargelisay xogayaha guud ee qaramada antonio guteres in nicholas haysom aan laga rabin islamarkaana aanu ka shaqayn karin soomaaliya, sidaa awgeed loo baahan yahay in dalka isaga baxo sida ugu dhaqsaha badan. wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad oo u waramay warbaahinta ayaa sheegay in ergeyga uu galay qaladaad badan islamarkaana uu wasiirka amniga gudaha ula dhaqmay sida mas-uul isaga ka amar qaata. master haysom wuxuu dhinac maray nidaamka iyo dhaqanka diblomaasiyadeed, wuxuu u dhaqmay sida inuu yahay madaxweynaha dalka. sidaasna waxaa yidhi wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya. iid bedel maxamed oo mar ahaa safiirka soomaaliya u fadhiyey qaramada midoobay ayaa warbaahinta u sheegay in dowladda federaalka ay awood u leedahay ceyrinta ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsanaa arrimaha soomaaliya, balse waxauu intaa ku daray in ay sax ahayn qaabka loo maray tallaabadaasi sida uu hadalka u dhigay. nicholas haysom ayaa warqadiisa uga hadlay saamaynta ka dhalan kartaa wararka sheegaya in ciidamo soomaali ah oo ay taageerto qaramada midoobay ay ku lug lahaayeen xariggii sheekh mukhtaar roowow ee dhacay 13 bishii diseembar iyo rabshadihii xigay ee la sheegay inay ku dhinteen 15 qof oo rayid ahaa. dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxaa khilaaf kala dhexeeya qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka, waxaana hadda muuqata in xiisad hor leh ay ka dhex abuurantay iyada iyo xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan dalka. weli waxaynu ku guda jirnaa wararka la xiriira ceyrinta danjiraha qaramada midoobay ee u qaabilsanaa soomaaliya. xildhibaan axmed fiqi iyo cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa siyaabo ka duwan uga hadlay amarka ka soo baxay villa soomaaliya. waxay sheegeen xildhibaan axmed fiqi iyo cabdiraxmaan cabdishakuur in xilligan aan loo baahnayn in dalka khilaaf lagala dhex abuuro qaramada midoobay oo ah hay-adda ugu sarraysa dunida oo ay taageerta dowladda soomaaliya. xildhibaan fiqi oo hadlayay ayaa sheegay in dowladda soomaaliya amarka ka soo baxay uu ahaa mid ay ku degdegtay, loona baahnayn xilligan in go-aan noocaasi ay ka qaadato. sidoo kale cabdiraxmaan cabdishakuur oo ah siyaasiga mucaaradka ku ah dowladda soomaaliya waxa uu si adag u soo dhoweeyey hadalkii ka soo yeeray danjire nicholas haysom oo ahaa in lagu xadgudbay waxyaabihii ka dhacay magaalada baydhabo, gaar ahaana doorashadii koonfur galbeed soomaaliya ee madaxtinimada iyo xariggii loo geystay mukhtaar roowow ama mansuur iyo dadkii ku dhintay baydhaba oo uu ku sheegay inay ku lug lahaayeen dowladda federaalka gaar ahaana wasaaradda amniga, taasoo murun badan dhalisay ugu dambayntiina keentay in danjire nicholas haysom lagu amro inuu dalka isaga baxo kadib warqad ka soo baxday madaxtooyada soomaaliya. siyaasiga caanka ah ee salaad cali jeelle ayaa si adag u weeraray madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud. salaad cali jeelle oo ah la taliyaha dhanka siyaasadda ee madaxweynaha soomaaliya ayaa weeraray madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud. salaad cali jeelle ayaa ku eedeeyey madaxweynihii hore ee dalka inuu abaabul qabiil uu ku wado, taasina ay tahay mid aan laga filanayn sida uu hadalka u dhigay. wuxuu sheegay inuu fadhi isugu yeeray qabiil, inkastoo uusan sheegin waxyaabaha ay ka wada hadleen fadhiga qabiileed ee uu abaabulay xasan sheekh maxamuud sida uu shaaciyey salaad cali jeelle. salaad cali jeelle ayaa yidhi waxaan markhaati ka ahay in hoteel uu ka dhacay shir uu soo abaabulay madaxweyne xasan sheekh maxamuud kaasoo looga hadlayey arrimo qabiil, ayuu yidhi inkastoo uusan ku dheeraanin waxyaabihii looga hadlay salaad cali jeelle.
xasan sheekh maxamuud ayaa maalmo ka hor kulan gaar ah la qaatay siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay dalka iyo kuwa hadda haya iyadoo aysan soo saarin waxyaabaha ay ka wada hadleen. ma jiro wax war ah oo dhanka xasan sheekh ka soo baxay oo looga jawaabayo hadalka ka soo yeeray Salaad Cali Jeelle oo ah la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya. waxaa goordhow la shaaciyay magacyada guddiga doorashada gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Puntland oo la doonayo in dhawaan lagu doorto magaalada Garowe. doorashada gudoomiyaha baarlamaanka ayaa ka dhacayso magaalada Garowe waxaana ku xigta doorashada madaxweynaha maamulka Puntland. waxaa guddigaasi gudoomiye looga dhigay Ismaaciil Cabdi Abtiile, waxaana saacadihii ugu dambeeyay socday la tashiyo ku saabsan guddigaasi iyo soo xulistiisa. haddaba magacyada guddiga doorashooyinka baarlamaanka Puntland ee lagu dhawaaqay ayaa ah 7 xubnood, waxayna kala yihiin xildhibaan Ismaaciil Cabdi Abtiile gudoomiyaha guddiga doorashada, lambar 2 xildhibaan Cali Axmed Saalax, lambar 3 xildhibaan Cabdirasaaq Xasan Ciise, lambar 4 xildhibaan Axmed Jaamac Diiriye, lambar 5 xildhibaan Fuaad Abshir Axmed, lambar 6 xildhibaan Cawil Xasan Daad, lambar 7 xildhibaan Maxamuud Maxamed Barre. guddigani ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda ay soo gabagabeeyaan doorashada gudoomiyaha baarlamaanka Puntland iyadoo ay sii xigi doonto doorashada guud ee madaxweynaha maamulkaasi. guud ahaanna intaa ayaan ku soo gabagabeynayaa war wixii caalamka inaga soo gaaray war wixii dalka iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray oo aad ka daawanayseen channelkeena Shumac Media. ha iloobina inaad subscribe garaysaan oo na share garaysaan si aad ula socotaan. ha iloobina inaad subscribe dhahdaan channelkeena Shumac si aad ula socotaan mugdiga iyo iftiinka idinka qarsoon oo uu mar waliba soo bandhigo Shumac Media channel. waad ku mahadsantihiin la socodka warkayaga. tan iyo kulanti dambana nabadgelyo.